waxaan marka isku waaninaynaa ka muslimiin ilaahay wuxuu na siiyey xisni iyo xirzi aanu kaga magan galno waxyaalaha maqaadiirta iyo balaayada dhaxaysa waa dhikriga ilaahay dhikriga ilaahay hore waa u haynay laakiin hadda hala badiyo axwaasha sidana markay dhacdo dhikriga ilaahay in la badiyo xirzun amiin baad galaysaa ilaahay baa ku ilaalinaya allah jalla jalaaluhu baad magan galaysaa ilaahay haddaad magan gashana wax kuu soo dhuuman karaa male wax ku dhibi karaana male ilaahayna qur-aanka uu ku sheegay allahu khaaliqu kulli shayin wa huwa calaa kulli shayin wakiil shay kasta ilaahay baa abuuray cudurka ilaahay baa abuuray naasiyadiisana ilaahay baa haya cidduu doonuna ku sallida cidduu doonana waa ka ilaaliyaa marka waxa weeye in dhikriga aanu badinno adkaartu waa anwaac dhikriga adkaarta sabaaxiga iyo masaa'iga oo hadda alxamdulillah muntashir ah oo meel kasta aad ka helayso oo moobilkan aad wadata kugu jirta dhikriga ha ka tegin subaxii adkaarteeda galabtii adkaarteeda akhriso marnaba ha ka tegin waa xisni waa xirzi ilaahay baa kugu ilaalinaya qur-aanka akhriskiisa aynu badsanno oo qur-aanku waxa weeye acdamu wa afdal shay fii dikri illaahi waay suuratu albaqara gurigii lagu akhriyo shaydaan uma soo dhowaanayo shaydaanka waxaan oo dhanna shaydaankaaba wataba shayaadiin iyo cafaariid iyo balaaya wadata marka ilaahay wuu naga ilaalinayaa biidni illaahi tacaala dikriga ilaahay aan ku dadaalno qur-aanka aan ku dadaalno yacni taasi macnaheedu ma aha in asbaabta oo sixiga ah ama is-ilaalinta kale ee guud ahaaneed inaannu iska dayna ma aha asbaabtan daahirkood bani aadamku ay maaragtay waqaayo ay ka dhigteen waad samaynaysaa oo inaad maaragtay ikhtilaad fara badan iyo meelaha aswaaqda iyo meelaha kada iyo meelaha dadka gaalada iyo dhexgalkooda iyo inaad maaragtay dee asbaabtaas oo iyagu sheegayaan iska wado bani aadamka unbaad jinsi ka mida tahay laakiin adiga ka muslim waxaa kuu dheer silaax iyo difaac gaara ilaahay ku siiyey adiguna ha ka gaabinin adkaarta sabaaxa oo masaa akhriso qur-aanka akhriso carruurtaada qur-aanka ku akhri guriga fariista xalaqatu tacliim ha la sameeyo qur-aanka ha la akhristo malaa'igtaa soo degaysa malaa'igtu meeshay timaado shar iyo aafaad oo dhan ilaahay waa ka kaxaynayaa biqudrati illaahi tacaala malaa'igtu waa makhluuqaad aad iyo aad ilaahay u barakeeyey nuur ka dhigay oo aan macaasi lahayn oo dembi lahayn marka bariis iyo baasti iyo hilibka ma rabaan iyagu waxay rabaan dikriga inaad xalaqa samayso guriga haddaad xalaqa samayso oo reerkao dhan wada fadhiisto oo qur-aankii la akhristo oo xadiistii nebiga la akhristo waxaa soo degaysa malaa'igtii guriga way soo gelaysaa xalaqadaasay soo doonanaysaa malaa'igtu meeshay timaadana aafaadka iyo shar oo dhanna waa ay ka baxayaan marka dikriga ilaahay baan isku waaninaynaa insha allahu tacaala tawfiiqdana allahna waafajiyo dembigeenana alla dhaafikiyo waalidiinteenna sala allah calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxaabatihi ajmaciin jazakum allah khayr